dagaalkii Yarmouk wuxuu ahaa dagaal culus oo dhex maray ciidamadii boqortooyadii Roomaanka Byzantine-ka ahaa iyo ciidamadii Islaamka. wuxuu ahaa dagaal socday 5 maalmood ilaa 6 maalmood sanadkii 636 wuxuuna ka dhacay dhulka webiga Yarmouk oo maanta ka tirsan carrada Urdun. natiijada dagaalkan wuxuu ahaa guul weyn oo Islaamka u soo hooyatay. dagaalka Yarmouk waxa lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa dagaaladii ugu adkaa taariikhda. dhammaan abaandulaha ciidanka Islaamka ayaa ahaa Khalid ibn Walid oo ahaa geesigii Islaamka. Khalid ibn Walid oo ahaa hogaamiyihii guud ee ciidanka Islaamka ee dagaalkani galay waxa uu ciidamada u qaybiyay guutooyin kala gaar ah oo guuto waliba wadatay hogaamiye u gaar ah. abaandulayaashii dagaalka sida weyn uga dhex muuqatay waxa ka mid ahaa Abu Ubayda, Amir bin Jarrah, Yazid ibn Abi Sufyan, Sharhabid ibn Hasna, Khalid ibn Walid, Iyad ibn Qum, Amr ibn Aas iyo hogaamiyayaal kale kuwaas oo ahaa ciidankii soo majeystayaasha ahaa ee muslimiinta ee dagaalkani galay. waxayna ahaayeen raggii ka soo baxay madrasatu Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ee hanuunintooda iyo tarbiyintooda uu iska lahaa nabigeena suuban nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. ciidanka Islaamka ee dagaalkani galay tiradoodu waxa ay u dhaxaysay 24,000 ilaa 40,000 taasi oo 100 qof ay ka mid ahaayeen asxaabtii gashay dagaalkii Badr. halka dhanka ciidanka tirada Roomaankuna ay dhannayd 240,000. muddo kadib diyaargarow badan oo labada dhinac ah waxa bilowday dagaal aad u qadhaadh. markii uu dagaalkan bilowday ee uu marayay meel adag ayaa waxa ciidankii u yimid nin dhambaal wada ahaa. kadib waxa uu tagay hogaamiyihii ciidanka oo ahaa Khalid ibn Walid waxaana uu Khalid weydiiyay halka uu ka yimid wuxuuna ku jawaabay Madiina. kadibna Khalid ayaa warqad akhriyay waxaana ku qornaa waxa dhintay khilaafatu Rasuulullah Abu Bakr Sadiq waxaana xilka la wareegay Umar bin Khattab. adigana Khalidow Umar uu ku casilay waxaana xilka lagu wareejiyay Abu Ubayda. akhris kadib Khalid warqadda ayuu jeebka ku riday. markii la weydiiyay waxa dhacay ee warqadda ku qoran waxa uu ku jawaabay wax fiican ayaa dhacay. dagaalka ayuuna sii watay isagoo markaas ciidanka ka ilaalinay inuu ku yimaado niyad jab. intaasi kadib markii uu dagaalku heer daran u gaadhay waxa hogaamiyihii guud ee ciidanka Roomaanka oo lagu magacaabay George uu wada hadal ugu baaqay Khalid ibn Walid isagoo Khalidna aqbalay waxaana hakad uu ku yimid dagaalkii isagoo dhowr su'aalood uu weydiiyay. ugu dambeyntiina George ku kaliftay inuu soo islaamo. Khalid ibn Walid ayaana shahaadada u qabtay isagoo alle u tukaday 2 rakacadood. markii ay arkeen ciidankii Roomaanku inuu islaamay hogaamiyahoodii waxay aad uga cadhoodeen arrintaas. dagaal adagna waa ay bilaabeen waxaana George uu la dagaalay gaaladii. ugu dambeynna waxa haleelay waran wuxuuna geeriyooday isagoo muslim ah. dagaalka ayaa sii socday waxaana maalintaas dagaalka aad uga muuqday Subayr ibn Awaam oo ah geesiga saddexaad ee ugu weyn geesiyada Islaamka. dhankiisa Khalid ibn Walid ayaa sii xoojiyay dagaalka taasi oo sababtay inay baxsadaan ciidankii fardafuulka ahaa ee Roomaanka. waxaana soo hadhay 80,000 oo silsilada ku xidhnaa dhammaantoodna halkaas ayay ku dhinteen. sidaas ayayna ciidankii Islaamku ugu gacan sarreeyeen dagaalkii Yarmouk oo ay ku guuleysteen ciidamadii Roomaanka ahaa. ciidamada Roomaanka ee dagaalkan ku dhintay waxa tiradoodu dhannayd 120,000 oo askari halka tirada dhimashada ciidanka Islaamkuna ay dhannayd 3,000 oo qof. waxa ka mid ahaa dadkii Islaamka ee kaga dhintay dagaalkan Ikrama ibn Abi Jahl oo ahaa wiilkii Abu Jahl, adeerkii iyo Daraar ibn Aswar. halka Abu Sufyan uu maanta uu ku ilbeelay dagaalkaas waxayna ahayd markii ugu horeysay ee dagaal la galo ciidamo reer Yurub ah. waxaana sidaas ku gabaysmay dagaalkii Yarmouk oo ahaa dagaalkii abida ugu weyna ee muslimiintu qaadaan ayna ku furtaan dhulkii Sham.